madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tacsi tiiraanyan la u diray ehelkii qoraabadii shacbiga Soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Alle ha u naxariistay abwaan Jilaa Ibraahim Ismaaciil Sugule oo loo garan ogaa Sooraan. Madaxweynaha oo ku sugnaa maanta magaalada Burco ayaa tacsidan ka diray isagoo ku sugan khayriyada magaalada Burco. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore maanta hadalkeena waxaan ku bilaabayaa tacsida abwaankeennii weynaa abwaanka qaran ahaa oo aan ka tacsideynaya inta af Soomaaliga ku hadasho dhan abwaan Ibraahim Ismaaciil Sugule Sooraan oo atiir qaranka afka Soomaalida ku hadasho dhan ka baxay ilaahay naxariistiisa iyo jannadii ka waraabi inta af Soomaaliga ku hadasho tacsiba loo direena qaranka Soomaaliland waa ka tacsideynaa qoyskiisa iyo carruurtiisa iyo raaskiisa waa ka tacsideynaa ilaahay iyagana awil khayr qaba raaskii carruurtii halkiisa u soo taasi waa tacsi ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.